shirkadda TikTok ayaa goordhow magaalada Nairobi ku qabanaysa bandhig weyn oo ay ugu magac dartay TikTok Safer Internet Summit. Bandhigga waxay ugu talagashay in looga doodo digital safety-ga guud ahaan Afrika. Dabcan waxay ku casuuntay dowladaha Afrika, hay-adaheeda dowladda qaar ka mid ah iyo institutionska wadamada ka dhisan qaar ka mid ah. Waxaan ku faraxsanahay in aan helay casuumaad aan bandhiga uga qayb geli doono. Waxaan ku matali doonaa alla idankii Arkan Leadership and Innovation Hub. Arkan waa social enterprise loogu talagalay in ay isku xirto qaybaha kala duwan ee bulshada sida hay-adaha dowladda, ganacsiyada gaarka loo leeyahay, bulshada iyo NGO-yadaba, iyadoo midbana gaarkiisa u horumarinaysa kana soo saaraysa hal abuurayaal iyo hogaamiyeyaal wax ka bedela naftooda iyo bulshada intaba. dabcan haddii aadan ka mid ahayn asxaabta Arkan ka follow garaysa internetka, waxaan boggooda kuula wadaagi doonaa qaybta hoose ee faalooyinka ama qaybta faahfaahinta ee muuqaalka raacsan. Waxaan rajeynayaa inaad hadda kusoo biri doonto alla idankii. Waxaan sidoo kale rajeynayaa inaad ii raaci doonto magaalada Nairobi oon hadda u dhaqaaqi doono alla idankii. Ha iga harin. Soo bax.